الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور علي horta waxaan leeyahay اطمئن وابشر iska bishaarayso qalbigana ku dego idinkula tartamayso halkan fadhida hadda da'da marka majaalistuna waa buuxda oo damac kale inuu kugu jiro waa dhici kartaa marka iska deganow insha Allah. waxaad weydiisay dhalashada iyo arrintaas runtii waqtiga bitaxdiid sida hadda dadka isbitaalada ku dhashay ama meelaha taariikhdeeda la yaqaan ku dhashay anuu kuma dhalan waxaan ku dhashay meel baadiye ah geed hoostiis ah aan isbitaal ahayn sida Soomaalidu hore u baday weliba iyadoo safar la yahay oo musaafir la yahay reerku naqraac yahay naqawa taqaan Soomaa roobar gudo meeshaas ugu hayaamayo iyadoo reerku hayaan yahay oo naqraac yahay ayaa hooyo Allahu naxariistee iyadoo awr saaran sida la ii sheegay awrkiina waa soo gaaray magaciisa gaaridi baa la dhihi jiray ayaa isagoo la intifaacsado baan ganacsaday marka awrkaasay saarnayd hooyo iyadoo caloosha igu sidaa raxmatullaahi tacaala calayha geedka hoostiisa lagu leexiyay iyadoo islaami halkaas ku dhalatay baa la igu yiri geedkiina waa la tusay horta taariikhdu bitaxdiid garanaysa ma jirto laakiin dadkii magaalada joogay oo maaragtay iyagu waxa taariikhaha la socday ama bilaha la socday sida waalidka Allahu naxariisto iyo ninkii walaalkay iga weynaa oo curadka ahaa Axmed Idris Liijo marka cadan joogay ayaa waxay ii sheegeen inay ku aadanayd 1958 bisha bitaxdiid ma garanayno laakiin waqtiga hadii laga qiyaaso Sheekh Abdirashiid waxaan ka weynahay ilaa 6-7 sano meelahaas alxamdulillaah rabbil caalamiin Sheekh Ali isaguna wiil yar way wuxuu ku soo dhawaanayaa kuwa aan dhalay ku soo dhawaanayaa takbiir taasna ma aha takbiir Sheekh Ali wuxuu soo daliishadaa oo xusuusiyaa in yar hadda halka ku sii daro oo ka sii farxiyo gurigeyga Maka wuxuu yiraahdaa miyaadan xusuusan markaan iman jiray 80aadkii oo wiilka Cabshakuur baan meel wada fariisan jiray imaan xusuus ma xusuustaan guriga markaan iman jirtay guriga hadda ma xusuusan kartid yiri aniga wiilkaaga la ciyaari jiray meesha loo fariisan على كل حال لشدوا واتاس وقت قاس كو حددت تقريبا إلهي بس قرنية ماشي نقول شيء ودقمة قندلاء بادية هذا وقبل كباري صوماليا أبي الله نحرسته يسوي يقدونا ورجع بعضك قاركيس واسمه مقالان لكن هذا نشيء هدي أي معركتي وحكي جرين مقدية أبي يسوي مهاجرة ودول كاسي من صوماليا وحنكي من دلك إريتريا يوكيمي وحسود دقي دول كاس بريقة وكبر وقبي حوالي بدن بومارة جناح صدوها مقالوا ينكاس وردن بوساسو يو قندلا يعلولا يو حابو يجسلي يدول كحيبتا وردن بودقي وتكام مقولها الحمد لله مركا يسوي هالكاس يوكيمي لكن أنا صومالي بانا شغلكم اللي هي afahan iyo dhaqan ahaan iyo deegaan ahaan intaba iyo shucuur ahaan waxaan ahay Soomaali magaaladaas ku dhashay alxamdulillaah iyadoo ku barbaaray dugsiga quraanka sida ardayda yaani Soomaalida dhaqankeedu ahaa aan ku galay kadibna iskuulka waraadkiisii ku dhigtay kadibna xamar baan mu wareegay magaalada Muqdisho iskuulka halkaas aan ka galay waxyaalaha igu tajribo fiicnayd markii aan dugsiga dhexe dhiganayay waxa ka mid ahayd ololihii darmiga oo aan ka qayb galay 1974 taasoo aan ka qaatay duruusta ugu waaweyn haddaan ku sii hormarinayaa oo ah jacaylka dhulka Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada iyo barashada dhulka Soomaaliyeed waxa la yiri aniga oo qandalo ku dhashay oo bari ka imi oo Muqdisho markaa ku dhaqnaa baadiyaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe leegay arday 16 jirana waan ahaa halkaas yani dhaqankii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed isdhexgalkeedii wax badan aan ka faa'iideystay aad kadibna
waxaan u baxay dalka dibaddiisa 1975 anu markii dadku safarta bannaanka aadeen qurbaha waa ka horreeyey 75kii cadan baan tegey xoogaa baan iskuulka ka sii dhigtay kadibna 77dii bishii labaad waxaan galay dalka sacuudiga ilaahay amarkiis iyo cajaa'ibta iyo qudrada waxaan ku socday kuweyt raadis baan ahaa nin dhallinyaro ah oo 19 jir ah laakiin 3 maalmood baan waxaan qaatay oo ah transit dalka sacuudiga markii la ii diiday cimriyo waxaas kadibna 3dii maalmood waxay noqotay 43 sano ilaa hadda inaan maka deganahay ilaahay fadligiisa meesha qofku marka wax loogu qorayo ama cimrigiisu uu noqonayo ama dadkiisu ay noqonayso ma oga meeshii dhulka ilaahay ugu barakaysnay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala deegaankayga ka dhigay iyadan maaragtay inta cimrigayga ilaa hadda ilaa waqtigaas 19 jirka aan ahaa aan ka safro oo aan meelaha aado Yurub aado Mareykan aado Aasiya aado Soomaaliya aado in kale aado laakiin deegaankayga rasmiga ahay wuxuu ahaa ilaa haddana yahay magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama iyada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunka iyo dacwada iyo diinta jacaylkeeda ilaahay ugu siiyey ma dhigan anigu sidii saaxiibaday waqtigaas yimi waxay galeen jaamacadda Makka iyo jaamacadda Madiina anigu labada jaamacadood midna ma gelin ilaahayna ima qadarin laakiin waxaan isleeyahay waa ka sii fiicnayd baan helay oo ah inaan culimada hoos fadhiisto oo xarameynka labada masjidba aan culimadeeda wax ka barto masaajidda kaleeto culimadii casrigan soo martay muslimiinta ee ducaadii ugu waaweyneyd aan ilaahay wuxuu ii qadaray inaan hoos fadhiisto oo aan wax ka akhristo muddana aan la noolaado alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ku fikri jiray inaan iska noqdo dacya waqtigaas aan 20 jirka ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ii xaqiijiyey qur-aanka sidii sheekh cabdirashiid yaraantii kuma aanan xifdin waa dul maray oo waa bartay laakiin ma aanan xifdin qur-aanka waxaan xifdiyey aniga weyn oo caruur leh oo reer leh taasna waxay daliil u tahay in qofku haddii ay ka go'an tahay sidii sheekhu haddaay uu yidhi diyaar ma u nahay inaynu qur-aanka xifdinno haddii uu qofka niyad ka tahay diyaarna uu yahay waa xifdin karaa da' kasta uu yahay waxaa xalqadda xaramka markii aan sheekha ku dul akhrin jiray ama dhiganayay xifdiga nala dhigan jiray nin aniga markaa iga weynaa 70 jir oo bakistaani ah oo dalka bakistaanki wuuna xifdiyey qur-aanka 5 sano kadib wuu dhameeyey marka qur-aanka waqtiga kasta waa xifdin kartaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin intii ka dambeysay haddee shaqada adduunka oo dee meeshan dalkan ka shaqaysan jiray waxyaalo kala duwan oo shirkadaha iyo waxaas laakiin 30 sano ugu dambeysay dacwada iyo arrimaheedaas un baan u badnaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu sugo dariiqaas ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu khaatumada iigu hagaajiyo duruusta يعني نولشا سيان وركا كوغوسو غابيو درسيga koowaad oo noloshaas yani 60 sano hadda kor madaxa kala baxday aan isleeyahay waa qaadan kartaa dhalinyaraduna ay ka faa'iideysan karaan waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaantiisa iyo kitaabka qur'aanka ah kariimka ah jacaylkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuugu furayaa jamiic alabwaab abwaab kasta ama albaab kasta oo kaa xiran marka nicmada ugu horeysa ama dersiga ugu horeeya aan isleeyahay nolosha aan laga dhergi karin macaankeeda waa kitaab qur'aanka ah waxyiga kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala taas waa dersi weeye dersiga labaad waxaa weeye qofka haddii uu leeyahay himmad caaliya oo meel inuu gaaro u rabo ama hadaf iyo ujeeddo uu leeyahay u baahan yahay himmadaasu inay xambaarto iyadaa u noqonaysa labada baal
أنا أستمركي مثلا قرآن كان حفظيني معلنك صلاة فجر ساعات كهر بنقولي سوق تجري كتبنا وسوق هذه جري معلنك وعن قوة تكنجرني حرم كشريف كعبضة كدبنا درسي أيام وقبل حجري كدبنا قرقيس أيام كل علين جري كدبنا أنا ومركز عن شغلي هذه جري مركز الله وسع كهر وين الديار قروبا صلاة الفجر كهر ساعات وغيران كهر سيانو لبستو تغو ويسقو سو قادو وانو جيو هدانا وعليو هدانا درس كسو هدانا aan soo noqdo intaas waxa xambaaraya jacaylka marka hadii aad himadeeda hayso waxba kuguma adkaanayaan waxba sacab kuguma noqonayaan ha culaysan taasna waa qodobka saddexaad oo aan ku darayo waxa weeye yani safartan iyo dacwadan badan duruus badan bay ku siisaa laakiin hal darsi ayaan isleeyahay waad la wadaagi kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaaska ha nagu irsaaqo ducada iyo dhallinyarada dadka dacwada diinta ilaahay doonaya ikhlaaska ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga inuu daacadnimo ka ogaado cid kaloo aad la wadaagi karto ama kula wadaagi kartaa ma jirto cid kaloo aad ugu mujaamalayn karaysaana ma jirto laakiin waa midda najaaxaaga ama guushaada koowaad keeni karta cid inaadan ku mujaamalayn cid inaadan tusin ilaahay qalbigaaga ha ka daalacdo waxa runtu tahay ku nowlaymo waad ku najaxaysaa dacwadaada ama diintaada ama wixii aad wado nooc kastaba ha noqdo midda labaadna waxa weeye dacwadaas waxaad wax ka keeni kartaa inaad naftaada siiso kulligeed say tahay waa iyada ka iibiso waxaa laga yaabaa dhinacyo badan oo kaleeto inay kaaga tagaan waa sax hadda masalan aniga waxaan qirsanahay inay waxyaalo badan oo kale igaga tegayaan carruurtaydii waxyaalo badan oo xaq ay u lahaayeen inaan helayn reerahaygii inaan helayn anigii naftaydii inaanay helihayn oo waxyaalihii adduunka baan ka hadlayaa laakiin haddii aad doonayso mabda ama risaalo ama ujeeddo inaad xaqiijiso naftaada inaad siiso way u hurto waxyaalo kaloo badan baad ku weynaysaa waa sax oo kaa dheelinaya iyagana waxaan weydiistaa ama xaasaska ha noqdaan ama ilmaha ha noqdaan cudurdaar iyo cafis waayo wakhtigii iyaga badan oo marar badan aan siin lahaa ayaa wuxuu ku baxayaa ummadda iyo dacwada waa laga yaabaa inuu ku baxo marka inay iga cafiyaan oo iga siiyaan laakiin adiguna markaasun baad wax ku keeni kartaa mabda aad xambaarsan tahay taasna waxaan isleeyahay waxyaalaha duruusta waxaan kaloo idiin sheegayaa oo warku soo khatimayaa haddaanu sheekh cali su-aale igula soo noqon dadkan soomaaliyeed ayaan anigu ku soo dhex koray intana ku soo leekaaday intana aan ku soo leekaaday waxaan aaminsanahay iyagana inaan bartay iyaguna ay barteen saas darteed waxaan idinka sheegayaa waxyaalahooda yacni xumaan badan baa jirta oo laga sheego maanta waxaan idiin sheegaa anigu yacni kalsoonida aan ku qabo dadka soomaaliyeed inay tahay midda aniga najaaxayga qaybta koowaad ah yacni haddii aan wax ku najaxay ama camal aan ku guulaystay bacdallaahi sabab waxa u ah kalsoonida anigu aan ku qabo dadkaas for example haddii aan meel imaado waddan weligay aanan u tegin ama gobol aanan weligay tegin horta waa wada maday gobollada soomaalida oo dhan law yacda laga soo bilaabo ilaa iyo raas kambooni gobol aanan tegin ama aanan dacwo ka gelin ama aanan wax ka qaban ma jiro tajribo fiican baan marka u leeyahay qabaa'ilkeeda dadkeeda magaalooyinkeeda waan bartay waana la noolaaday gudo iyo dibad waxaan idiin sheegayaa si guud ahaaneed dad fiican inay yihiin dad risaalo iyo adduun lagu furi karan inay yihiin hadday helaan hoggaankii wanaagsanaayo ku furi lahaa inay yihiin waxalaalay wixii la doonana shucuubta adduunka aan laga heli karin in laga helaayo oo misaada hoggaan ay leeyihin bani aadam weeyo ceebahooda kale waa leeyihin laakiin intaasna waa tajribada aniga aan kala soo baxay saas darteed
haddii aan reer kasta ama magaalo kasta ama gobol kasta dad Soomaaliyeed oo meel waxdaan u tago waxaan ogahay ama aan aaminsanahay oo ku kalsoonay inaan ku najixi karo baan aaminsan waxaana la yiraahdaa de sida adigu dadka ka i'tiqaado ayay adigana ku noqdaan saasana Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga siiyay ilaahayna waxaan ka baryaa khayrkaas iyo maxabadaas inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo daa'imiyo sheekh Ali haddaan waxba ku hayn wiil yar inaad tahay ayaan markhaati halkan uga kacay maanta ugu yaraan 10 sano aan ka weynahay marka insha Allah ta'ala soo dhawo